السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بهذا سبورتيغا وها فرحت maanta iyo aan la qiyaasi karin garoonkan muddo ka yar sanad iyo bar ayaan imaaday maantana waa markii labaad oo aan imaado shalay markaan imaanayay garoonka wuxuu ahaa meel aan la malaysan karin xaaladda uu ku sugan yahay markaas waxa lagu bilaabay cleaning maanta waa u jeedaan quruxdiisa diyaar inuu u yahay xataa in ciyaaro international lagu hoosto gareeyo waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga iyo xiriirka Soomaaliya ee kubadda cagta oo qayb weyn ka qaadatay dhisidaan garoonka iyo wacyigelintiisa waddanka isboortiga waa waxyaabaha kaliya oo aan isdhihi kara maanta waxaa lagu badbaadin karaa future-ka waddanka markaan dhahay waa dhalinyarada waddanka mustaqbalka haddii dhalinyaro la diyaariyo waddanka dhalinyarada waa kuwa waddanka dumiya waana kuwa dhisan marka haddii aan ka diyaarino qaabka ay waddanku dhisi lahaayeen horumar aan la taaban karin ayaan gaari karnaa tan waxay ka mid tahay isboortiga waxyaabaha lagu dhiso waddanka la isugu keena dhalinyarada lagu barmood gareeya nabadda marka dhammaan isboortiga good news kan waa inaad ogaataan inuu waddanka diyaar u yahay inuu hore u socdo dhanka isboortiga arrintan farxadda leh maantana garoonka aan ku sugannahay istaadi Muqdisho oo aan muddo 30 sano kadib arki doono garoonkan u jeedaan weynankiisa oo la buuxo ciyaaro international lagu hoosto gareeyo aad u mahadsantihiin magacaygu waa Xasan Goodax waxaan ku suganahay istaadi Muqdisho waa arrin farxad leh clipkan hadda aragtana share garay insha Allah taala la wadaag dhammaan Soomaalida meel walba ku sugan yihiin waxaan isboortiga marka nagula raaxaysta waddankan waa waddankeeni waddankan waa waddan aanan qofne marti aan uga ahayn annagoo wada jir ah ayaan waddankeena dhisan karnaa isboortiga garab sii karnaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiiraddeena sharafta leh Khadiijo Maxamed Diiriye oo hawl adag qabatay tartiib iyo qaban adag samaysay aad u mahadsantiin dhammaan assalaamu calaykum sheegtay garoonkan oo rafa inuu ku dheeli jirtay hadda ka waran waagaas taa waqti weyn leed ka waran rafa armadow wallahi bilaa qofti wallahi dhulka ku dhigay dhulka wallahi ana fiirsana kolkaas wallahi kan hadda ku helay ciyaaruhu